bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka nuxurka wararka aan ku leenahay youtube-ka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal ku soo qaadan doonana barnaamijyadeena waxaa ka mid noqonaya xadgudubyada lagu eedeeyay Sema Molonga ku-xigeenka ergeyga midowga Afrika ee keenay in dalka Soomaaliya laga eriyo oo la shaaciyay haddaba waxay gaarayaan ilaa iyo 7 qodob barnaamijkeena ayaana daawadayaal idinku soo gudbi doonaa xog arintaasi ku aadan khilaaf cusub oo ka dhex qarxay dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika kadib ceerintii Sema Molonga sidoo kale daawadayaal waan soo qaadan doonaa muxuu salka ku hayaa dagaalka Barawe muxuu yahay qorshaha lafta garan madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale daawadayaal xog arintaasi ku aadan ayaa barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa qodobadaas ayaan daawadayaal daaha idinkaga rogi doonaa faahfaahintooda ha yeeshee intaanan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u guda gelin waxaan daawada ka dalbanaya oo aan ka codsanayaa in muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u heshay muuqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa oo seefaalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya midowga Afrika iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa khilaaf xooggan soo kala dhaxgalay kadib ka gadaal markii dawladda Soomaaliya ay dalka ka ceerisay ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ay Muqdisho ka ceerisay Sema Molonga oo ahaa ku-xigeenka ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Sema Molonga oo ka soo jeeday Uganda ayuu wasaaraddu ku eedeysay inuu faraha kula jiray waxyaabo ka baxsan waajibaadkiisa iyo sharciyadii uu dalka ku joogay waxay wasaaradda ku tilmaamtay nin aan dalka laga rabin person non grata iyadoo loo qabtay muddo 7 maalmood in uu isaga baxo Soomaaliya oo muddo dhowr sano ah joogay ma aysan shaacin qaladka uu galay nooca uu yahay balse waxay wasaaradda sheegtay inuu hoolaha iyo dhaqdhaqaaqyada uu waday aysan la jaan qaadaynin mandate-ka AMISOM iyo istaraatiijiyadda amni ee Soomaaliya talaabadan ayaa mid ashtaka hore ka gudbisay dawladda oo AU-da wax ka qaban weysay iyadoo Sema Molonga lagu eedeeyay in arrimaha siyaasadda gudaha uu faragelinayay Soomaaliya ayaa dalbatay in Sema Molonga lagu soo bedelo qof kale oo dhexdhexaad ah waxaana wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq uu sheegay in la xisaabtami doono hoggaanka AMISOM oo caadeystay in ay sida ay doonaan u dhaqmaan iyadoo ka gudbaya ujeedadii dalka loo keenay AMISOM ayaa muddo 14 sano ah dalka ka howlgalaysay iyadoo ka kooban Uganda oo ciidanka ugu badan ka jooga Burundi, Kenya, Djibouti iyo Ethiopia waxaana lagu eedeeyay inaysan si sax ah u howlgalaynin oo ciidanka iska qaataan mushaarkooda iskana fadhiyaan saldhigyadii ay qabsadeen dhowr sano ka hor talaabadan Sema Molonga dalka looga ceeriyay ayaa imaanaysa xilli uu jiray khilaaf u dhaxeeya midowga Afrika iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan ka bixitaanka AMISOM December 2021 iyadoo dhawaan guddiga nabadgelyada iyo amniga AU-da uu meel mariyay qaraar howlgalka loogu bedelayo UN taas oo villa Soomaaliya diiday haddaba ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo lala xiriiray ayaa waxa ay daaha ka feedeen xog ku saabsan sababaha dalka looga eriyay Sema Molonga Sema Molonga ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo bulsho iyo kuwa siyaasadeed oo dalka uu ka galay kuwaasi oo soo jiitamaya muddo sida aan xogta ku helnay waxaana qodobada ay soo dusiyeen ila wareedyadan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay kala yihiin qodobka koowaad Simon waxa uu ahaa shakhsi ku caan baxay in uu ka shaqeeyo waxyaabo dhaawacaya qarannimada Soomaaliya kana baxsan xuduudka mandate-ka howlgalka midowga Afrika isaga oo xogo qaldan oo ka fog waaqaca mar walba dalkeena ka gudbin jiray qodobka labaad waxa uu baqamaali jiray siyaasiyiinta iyo qaar kamid ah madaxda Soomaaliyeed isaga oo ugu hanjabi jiray ceebeen qaar uu ugu cagajugleen jiray in uu dilayo kuwa kalena uu isku diri jiray isaga oo fariimo qaldan u kala qaadaya qodobka saddexaad waxa uu ahaa shakhsi aan Soomaaliya u aqoonsanayn inay tahay qaran madax bannaan oo leh dawlad la aqoonsan yahay waxa uu si bareera ugu kici jiray falal ka marakacaya arrimahaasi isaga oo shirarka iyo fagaarayaashaba ka sheegi jiray in Soomaaliya aysan ka jirin dawlad balse ay tahay qabaa'ilo mid walba mudan yahay in gaarkiisa loola tacaamulo
qodobka afraad waxa uu isaga oo adeegsanaya shaarka midowga Afrika jaajuusi jiray ciidamada iyo hay'adaha kale ee dawladda isaga oo xogaha iyo sirta dawladda la wadaagi jiray shakhsiyaad hay'ado iyo dawlado shisheeye waxa uuna ka sameyn jiray macaash dhaqaale iyo ujeedooyin u gaar ah isaga qodobka shanaad waxa uu hay'ad shisheeye oo ay ka mid tahay tan la dhaho sahan iyo shakhsiga la yiraahdo Matt Braden kala shaqeeyay in dalkeena ay ka gudbiyaan xogo iyo siro khatar geliya amniga qaranka madax banaanida dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed qodobka lixaad waxa uu baad ka qaadi jiray ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeed isagoo ugu hanjabi jiray in uu ku eedeynayo in argagixisada gacan saar la leeyihiin waxa kale oo uu si gaar ah u baadi jiray shirkadaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha iyo xeyndaabka Xalane waxaana arintaasi u fududeyn jiray saraakiil kale oo ajnabi ah oo uu ka mid yahay ninka la dhaho Mark qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waxa uu xadgudubyo jinsi iyo falal faraxumeyn ah kula kacay hablo Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya xafiiskiisa iyo xafiisyada kale ee howlgalka midowga Afrika taasoo cadeymahooda ee dawladdu gacanta ku hayso dhammaan arrimahaasi ayaa keenay in dalka laga eriyo Simon Malonga sida ay xaqiijiyeen ilo wareede ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Malonga ayaa noqonaya diblomaasigi labaad ee dalkeena laga baaciyo muddo 2 sano gudahooda iyada oo la dul dhigay amarka ah dalkan lagama rabo Persona non grata loona qabtay muddo 7 maalmood ah in uu dalka isaga baxo geeska kalena daawadayaal hadeen eegno muxuu salka ku hayaa dagaalka Barawe muxuu yahay qorshaha Laftagareen magaalada Barawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka taagan khilaaf salka ku haya awood qaybsiga maamulka magaalada waxaana ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamo military ah iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo ciidan gaar ah oo dhawaan uu Barawe geeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu kurgelid lagu sameeyay waxa la isku hayay iyo sababta keentay dagaalka waxaana la ogaaday in khilaafkan gaaray gacan ka hadalka uu salka ku hayo awood qaybsiga golaha deegaanka oo haatan la doonayo in Barawe loo dhiso madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la sheegay inuu diidan yahay in beesha Hawiye ay xubno ku yeelato golaha deegaanka ee loo dhisayo Barawe isagoo taasi ka duulaya ayuu maalmo ka hor ciidamo si gaar ah uga amar qaata ka soo daabulay Baydhabo wuxuuna ka dejiyay Barawe kuwaasi oo dagaal ku galay magaalada mid kamid ah waxgaradka beelaha Hawiye ee degan magaalada Barawe ayaa la weydiiyay sababta ka dambaysa gacan ka hadalka ka dhashay dhismaha golaha deegaanka wuxuuna aad u eedeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed isagoo sheegay in beesha Hawiye uu duudsiinayo xaqa ay ku leedahay maamulka uu hogaamiyo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya dagaalka Barawe waxa uu salka ku hayaa dulmi oo Cabdicasiis Laftagareen ku hayo beelaha Hawiye oo bulshada Barawe ku nool ka 90% horay Laftagareen wuxuu Hawiye ugu diiday saamigii madaxweyne ku xigeenka oo ay beeshu ku heshay awood qaybsiga iyo deganaanshaha gobolada Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose waxaan nahay qabaa'ilka ugu canshuur bixinta badan Koonfur Galbeed waxay soo gaartay in maanta golihii deegaanka ee la yiri Barawe ha loo sameeyo uu Cabdicasiis Laftagareen Hawiye u diido ayuu yiri mid kamid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool degmada Barawe dadka deegaanka oo siyaabo kala duwan aanu la xiriirnay waxay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo gaaraya 100 askari oo maalmo ka hor laga dejiyay Barawe kuwaasi oo la sheegay inay sugi doonaan ammaanka goobta ay ka dhaceyso doorashada golaha deegaanka ee Barawe ciidamadaasi oo sida naloo sheegay toos u hoostaga madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay maalmo ka hor israasaasayeen maleeshiyada dadka deegaanka oo gacan ka helaya ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya oo fariisimo ku leh degmada Barawe dadka nala hadlay waxay noo xaqiijiyeen in israasaasayntaasi uu ku dhintay hal qof oo dadka deegaanka kaasi oo ka soo jeeda beesha Hawiye ee ka cabanaysa awood qaybsiga laga hor istaagay ee golaha deegaanka nabadoonka ku sugan Barawe oo faahfaahin ka bixiyay sababta ka dambaysa dagaalkii ka dhacay gudaha degmada Barawe ayaa yiri markii ciidamada Laftagareen ay naga dileen qof kamid ah dadka deegaanka ayuu madaxweynuhu soo diray ergo si looga xaaltamo dhibkii dhacay balse gogoshii aan ka sugeynay waxay u bedeleen weerar ay nagu soo qaadeen ciidamadii uu magaalada keenay Laftagareen waan iska dhicinay waxaana halkaas ku dhintay 3 kamid ah askartii oo Baydhabo ka keensaday Laftagareen ugu dambeyntii qofkan noo waramay oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaan
isla markaana ka mid ah waxgaradka magaalada Baraawe ayaa sheegay in dagaalkaasi kadib ay hadda inta badan magaalada gacanta ku hayaan ciidanka is urursaday ee ka soo jeeda beelaha Hawiye ee degan Baraawe. sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamadii uu lafta garan magaalada keenay ee dagaalka la galay dadka deegaanka gaar ahaan qabaa'ilka Hawiyaha ee ku carareen xerada ciidamada AMISOM oo magangelyo ee u raadsadeen sida uu hadalku dhigay. maalmihii la soo dhaafay waxa ay soo tarayay cabashada waxgaradka beelaha Hawiye ee wax ka dega magaalo xebeedka Baraawe kuwaasi oo sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan uu si cad ugu sheegay in golaha deegaanka ee loo dhisayo Baraawe aysan hal xubin ku yeelan doonin beesha Hawiye waxayna wacad ku mareen intaasi aysan aqbali doonin. Baraawe oo loo qorsheenayo in loo dhiso golo deegaan oo soo doorta maamulka magaaladaasi ayaa haatan marti gelinaysa dagaalo u abaabulan qaab qabiil. sidoo kale waxaa la qorsheenayaa in Baraawe ay ka bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya sida ay hore u sheegeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne lafta garan oo booqasho ku tagay halkaasi. guud ahaan daawadayaal waa inaga barnaamijka channelka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalka like inoo saar channelka subscribe inoo saar fura gambaleelka tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.